بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام يا أمة الصوماليين مeel kastoo ay joogto. meeshan maanta aan joogno waa magaalada Bacadweyn. waxaan qabanaynaa waxa weeye waa laamigii burbursanaa ee adeegeydeen oo muddo aan wax laga qaban oo runtii maanta dhalinyaradii reer Bacadweyn ay u istaagtay. taasoo aad moodid waaga hore hadee waxay ku qabanayeen shamiito iyo carrakaawo ay ku qabanayeen laakiin hadda horumarkii wuxuu marayaa in ay iyagu daamurkooda soo gataan. wixii qof walbana awoodan oo ku soo darsanayo anigu waxaan la baxay fuusta daamura iyo qalabka hadda ay ku shaqeynayaan anoo ugu taageeraya hadda degmadeedii iyo dalkaygii Soomaaliyeed maantana waad aragtaan shaqadan hadda aan qabanayno daamurkii waxa weeye karkarsan oo waxa weeye la soo foorneeyay laguna samaynayo godadkii jajabnaa kaasoo aan u aragnay inuu yahay markii la baaray ama cilmi ahaan loo fiirshay meesha kan ugu wanaagsan asagoo furnaysan in lagu waxeeyo sidaas darteed marka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa in ay siiba deegaankan gaalkacyo Bacadweyn qof kastoo daneynaya dalka Soomaaliya inuu horumarkiisa ka qayb qaato qofkii iibin kara fuusto daamura ama haaf ama maxaan ku yiraahdaa kooto wax kastoo awoodiisu tahay inuu nagala qayb qaato. number 1 waxaan leeyahay madaxweynaha Cabdiwali Cali Gaas madaxweynaha Puntland waxaan ka codsanaynaa inuu nagala qayb qaato iyo xildhibaanada iyo wasiirada dhammaan nin walbana uu fuustadiisa la baxo. anna waxaan ku shaqeynaa waa iska wax u qabso company maahan lacag qaadanaya nin walbana xooggiisii dhalinyarada hadda ila taagan u jeedaan shaqada hadda haysta waa baabuureedii iyo ganacsatadii magaalada ayaguna hadda diyaar waxay u yihiin xoogooda iyo maalkooda ay ku bixiyaan dalka waxqabadkiisa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa insha Allah waxaan rajeynayaa nagala qayb qaadataan annagoo dhalinyaradii deegaanka Bacadweyn waxaanu isku xilqaanay inaanu ka dayactirno wadada laamiga oo isku xirta Bacadweyn ilaa Gaalkacyo runtii markaanu aragnay dayaca ka muuqda wadada ayaan waxaanu isku daynay inaanu bal wixii aan ka qaban karno ka qabanno annagoo dhalinyaro kooban waxaanu fayskii koowaad bilownay inaanu carrakaawo ku buuxino godadka jajaban carrakaawadii muddo haddaanu wadnay waxaa noo dhalatay fikrada inaanu shub iyo sibir ku buuxino iyadana muddaan soo wadnay meelo badan oo wadada ka mid ah wax kaga qabanay maanta ilaahay mahadi waxaan maraynaa inaanu daamur aanu annagu jeebkayaga ka gadanay aanu isticmaalayno fikradayadii ayaa maalinba maalinta ka dambaysa noo sii siyaadaysay muhiimadda koowaad saldhigeeduna wuxuu ahaa inaanu bal dayactir laamiga wixii tabartayadu ay tahay aanu ka qabanno magacayna waxaa la yiraahdaa arrimaha warakaaro waxay la shaqeynaysaa dhalinyaro qaybaheeda kala duwan yihiin alxamdulillah shucuurteeda lama soo koobi karo waxaan wax u baranay oo maaragtay waalidkeen wax noo bareen waxa weeye in magaalooyinkeena nadiifsano sida la ajigeed waxaan ka codsanaynaa beesha dadka Bacadweyn ku nool dadweynaheeda qaybaheeda kala duwan hooyooyinka dhalinyarada qaybaheeda badan ganacsatada bulshada oo dhan waxay isugu jirto caamiyo culimo inay nagala qayb qaataan ololaha nadaafadeed runtii waxa weeyaan nadaafadu waxa ay tahay waxa weeyaan annaga dareensan waxa la yiraahday prevention is better than care ka hortaggu wuxuu ka fiican yahay iska daweynta cudurku wuxuu ku jiraa intuu qashinkaagu badan yahay waxaan kaloo leenahay bulshada qaybaheeda kala duwan in nagala qayb qaadato dhalinyaro istaagoo dhidibada u taago dhulka hooyo daba qabo aan idin dhaqaashay dhalinyaro waxay tahay xangulaha dhexdiisa iyo lafta dhabarka celisay dhaqdhaqaaqa ama hadba dhinac u jiida maskaxdana u dhow xididad u dhaafaan dhalinyaro halkaasay dadweyne ku dhigan tahay marka waxaan leeyahay hal istaago dhalinyaro dalka iyo dadkana waxa loo qabto si hagar la'aana isku tashi ku dhaysan qabiil dawlad cidna waxba aan la fiirinayn ay tahay qof kasta sidoo uga dhex muuqan lahaa horumarka dalkiisa iyo dadkiisa iyo bilicdiisa isagoo waxa weeye Ilaahay darti wax walba ugu qabanaya isku tashigu Ilaahay darti buu ku dhisay yahay